عويس وناكسن داور ريال دلنيرة دقمة فيق أيها يشيركو بيغان مالنتا فيدريشن كدلنيرة دا وحنوغو بينا فافاين توركاسي shirkaas oo ka soo qayb galeen dhalinyaro badan oo ku beegnaa xuska maalinta federation dhalinyarada oo ka dhacay magaalada Fiiq waxa laga wada hadlay dadaalka ay dawladda deegaanka Soomaalidu ugu jirto wax ka qabashada arrimaha dhalinyarada ee dhinac walba leh iyo doorka looga baahan yahay in dhalinyarada ay ka ciyaaraan hawlaha dhinaca horumarka nabadgelyada iyo arrimaha bulshada waxa kulankaasi si ballaaran looga hadlay qiimaha weyn ee dhalinyarada ay ku fadhido nidaamka xisbigu wado xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalidu uu wado dadaalka uu saarayo dhalinyarada iyo haweenka waa maxay waa jiilka soo koraya haweenkuna waa warshadii wax soo saaraysa dhalinyaraduna waa xoogii iyo cududii lagu xisaabtamay intii hadda maanta halkan fadhiyo joorajigii baa idinku jira dhakhtarkii baa idinku jira kii gudoomiye gobol noqon lahaa baa idinku jira kii gudoomiye degmo noqon lahaa baa ku jira kii kaabare noqon lahaa baa ku jira bayladkii noqon lahaa baa idinku jira saraakiisha dowladda deegaanka hagaysa kuwii noqon lahaa baa idinku jira militariga kii noqon lahaa baa idinku jira saraakiisha noqon lahaa ciidamada kala gedisan xoogii loo baahan kii noqon lahaa baa idinku jira haddii aydan marka idinka inta la isku gubarido aydan idinkii la imanin kalsooni iyo firfircoonaan beeriya oo waxbarashadii horumarkii nabadgelyadii iyo hawlihii xisbiga aydan la barbar istaagin dowladdiina aydan wax qabsanin cid kaleeto horta kor nooga iman doontaa ma jirto xooggaas iyo dadka idinku jirana sida ay ku soo baxayaan waa maxay oo waxyaalaha halkan aan isaga sheegno intaad ka faa'iidaysataan oo aad ku howlgashaan natiijo aad ka keentaan kulankan waxaa kaloo laga soo jeediyey dadaalka ay wada dawladda deegaanka Soomaalida ee uu hogaaminayo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya gudoomiye ku-xigeenka federation-ka dhalinyarada Khadar Ibrahim Abdi ayaa isaguna ka hadlay sida ay dhalinyaradu soo dhaweynayso dib u orashada deegaanka Soomaalida ka hirgashay iyo miraha dib lagala kulmay waxaan hadda lagu soo jeedinayaa dawladda deegaanka Soomaalida oo hadda sanad bil dambeysay samaysay macnaha kulan ballaaran oo laga tashanayay nabadgelyada iyo horumarka oo laga dib u orashada dawladda deegaanka Soomaalida aad ayuu soo dhaweynaa marka koowaad waanu ku faraxsanahay tallaabooyin fiican ayaan hadda ka aragnay anagoo gaarin muddo laba bilood aynaba gaarinba ayaa waxaan ka aragnay tallaabooyin hadda ka hor aan marki jirin oo ka mid yihiin horumarka hadday noqoto mashaariicda iyo hadday noqoto abaabulka bulshada saa darteed aad ayaan ugu faraxsanahay haddaan naawurka dhalinyarta waxaan isweydiinaa intii horeba waxaan laga qaban jirin haddii laba sano oo dambe ay sii jirto dib u orashadu ma laga yaabaa inaan dambeeyo wax weyn aan filayno beenan gaarin dhalinyaradu waa xoogga ugu muhiimsan ee hirgelinta dib u orashada ka bilaabantay dawladda deegaanka Soomaalida dowladda Australia iyo hay'adda barnaamijka cuntada adduunka WFP ayaa codsaday boqolaal malyan oo gargaar ah oo loogu gurmanayo dadka abaaruhu saameeyay ku nool gobolka Geeska Afrika waxaa faafaynta warkaas soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Shariif dawladda Australia barnaamijka cuntada adduunka ee ururka qaramada midoobay ayaa codsaday $100 milyan si wax looga qabto mushkiladda ka taagan gobolka Geeska Afrika oo ku habsatay abaartii ugu baaneed nusqadii tagay sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Australia Kevin Rudd ayaa sheegay in ay bulshada caalamka ku guuldareysato inay u fidiyaan deeq dhaqaale wax looga qabto arrintan ururka qaramada midoobay iyo ururada kale ee gargaarka ay keeni doonto dhimashada kumanaan qof oo carruur u badan
to cut the UN some slack, that is, accept the flexibility that they will need. waxaan u baahannahay in ururka qaramada midoobay uu dabacsanaan muujiyo taasi oo ah inay aqbalaan isbedbedelka ay u baahan tahay si ay u gaaraan abaartan ba'an iyadoo guud ahaanba ammaanka Soomaaliya uu yahay mid laga deerinayo sida aan sheegay 60% dadka ay hadda abaartu ku dhufatay ee dalkaas Soomaaliya ilaa hadda wax xid ah oo leeyihiin hay'adaha qaramada midoobay ma jiraan sidaa daraadeed laba arrimood oo aan sameynaa inaan gadaal u istaagno oo aan gacmaheena ka laabano waxbana aanan ka qabanin iyo inaan aadno goobahaas oo aan ka shaqeyno arrintan oo ah mid badan khatar ah isla mar ahaantaana dhibaatada leh taasi oo ay tahay in lagu amaano hay'adaha bini'aadanimada qaramada midoobay ka go'aanshahooda iyo geesinimadooda waxa kale oo Kevin uu sheegay in dowladaha reer galbeedka iyo ururka qaramada midoobay ay soo wajahday cambaareen ku aadan sida gaabiska ah ee ay ilaa hadda u jawaabeen abaartan baan ay saameysay ilaa 12 milyan oo qof ee ku nool wadamada Soomaaliya, Ethiopia, Kenya iyo Djibouti dhinaca kale barnaamijka cunnada adduunka ee ururka qaramada midoobay ayaa sheegay inuusan gaari karin ilaa 2 milyan oo Soomaalida abaaruhu ay saameeyeen kuwaas oo ku sugan goobaha ay kooxaha Islaamiyiinta gacanta ku hayaan oo sanadkii 2010 xanibaad ku soo rogay raashinka hay'adaha gargaarka maareeyaha guud ee hadda WFP Josette Shiran oo booqasho ku tagtay xerada qaxootiga ee Dadaab ee dalkaas Kenya oo ah xerada qaxootiga ugu weyn caalamka ayaa halkaas kula kulantay haween Soomaaliyeed oo loo qasbay inay guryahooda ka soo cararaan kuwaas oo ka soo talaabay xadka oo ah mid aad u dhib badan Josette Shiran ayaa sheegtay in dhakhaatiirta ku sugan xerada qaxootiga ee Dadaab ay sheegayaan in carruurtu u gudbaysa heerka afraad ee nafaqo-darrada ay soo kordhaan kuwaas oo 40% oo la rajaynayo inay badbaadaan There will be a massive global effort to bring waxaa jiri doona dadaal ballaaran oo caalamka ah si aan u keenno halkan waxaan awoodno si aan u ilaalino carruurta shalay waxaan aragnay carruur aad u tiro badan kuwaas oo badi ay ku sugan yihiin darajada afraad ee nafaqo-darrada taasi oo ka dhigan in keliya 40% ay badbaadiyaan marka ay xaaladdu halkaasi gaadhana waxay ka dhigan tahay dagaal geeri iyo nolol u dhexeeya taasi oo u baahan in la badbaadiyo Josette Shiran ayaa xustay in ilaa 7 ay heleen ballanqaad lacageed oo dhan ilaa 220 milyan oo dollar laakiin waxa ay sheegtay inay u baahan tahay hay'adda WFP waqti xaadirkan ilaa dhamaadka sanadka lacag gaaraysa 360 milyan oo dollar si dhanka hawada gargaar cunno looga soo daadiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ku sugan meelaha ay mucaaradka ee dalkaas Soomaaliya haween ka qayb qaatay waxbarashada dadka waaweyn ee asaasiga ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey magaalada Fiiq ee dowladda deegaanka Soomaalida waxaanu talaabaynaa faafaynta warkaasi xafladaasi shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay haweenka waxbarashada asaasiga akhriska iyo qorista luqadda af Soomaaliga bartay lagu qabtay magaalada Fiiq waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta degmada Fiiq macalinka hawshaas waxbarashada waday culimaaddin odayaal iyo haweenka waxbarashada u dhamaatay mas'uuliyiinta goobtaasi ka hadashay waxay ammaan ballaaran u soo jeediyeen macalinka hawshaas hirgeliyay iyo waliba geesinimada dhinaca waxbarashada ay la yimaadeen haweenka waxbarashada loo fidiyay intaasna ay muujinayso inaan mar walba la oran karaynin daadii waxbarashada waan ka gudbay oo waxbarashadu mar walba furan tahay kamid ah haweenkaasi ayaa dareenkooda muujiyay
diray maamulka iyo odayaashooda iyo waxaa loo baahan yahay in tallaabadaasi muhiimka lagu daydo oo la sameeyo kuwa kaloo la mid ah ama kaba sii wanaagsan. qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka Fiiq ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin adeegyada iyo hawlaha dhinaca horumarka ee dowladda deegaanka Soomaalida ay qabatay iyo hawlaha ay wado dowladda federaalku. waxaa faahfaahintaas la soo jeedinaya Maxamed Shariif. qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Fiiq ayaa soo dhaweeyay horumarka ka socda gobolka Fiiq iyagoo u mahadceliyay maamulka dowladda dhexe iyo dowladda deegaanka Soomaalida oo suurtageliyay horumarka haatan ka qaaday gobolkaasi. waxaa kaloo ay shacabka gobolka Fiiq soo dhaweeyeen maamulka cusub ee dib u warshada ee gudaha deegaanka Soomaalida laga hirgeliyay. Cabdi Maxamed Diiriye waxa uu ka mid yahay odayaasha degmada Fiiq waxa uuna isagoo ka hadlaya dareenkiisa ku aadan horumarka ka socda gobolkaasi Fiiqdi sida tan. magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdi Maxamed Diiriye Cabdi Dhuub waxaan ahay odayaasha degmada Fiiqeed meeshan aan joogno waxaa la yidhaahdaa Daaqatayay waa qabale degmada Fiiqeed ka mid ah meeshan waxaa laga samaynayaa anteenadii oo ka dhammaystirantay waxa weeyaan waa horumarkii degmada Fiiqeed oo muddo dheer laga soo shaqaynayay wadadii laydkii maxay ahayday iyo mobeelkii oo ilaahay mahadi si fiican noogu dhammaystirmay waxaan rajaynaynaa wixii kale ee horumar ah naga dhimanna inaan dhammaystiri doono. sidoo kale barkhadle sheekh oo ka mid ah qurbo joogta ka soo jeeda gobolkaasi Fiiq ku nool dalka Mareykanka ayaa isna cabiray dareenkiisa ku aadan horumarka ka socda gobolkaasi Fiiq. arrinta horumarka ee gobolka Fiiqeed ka socotay wadadani ka mid tahay telefoonka isgaarsiinta xagga gacanta mobilku ka mid yahay mar hadana lama koobi karo farxadda aniga khaasan haysa iyo horumarka meesha ka jira mid la koobi karo maaha qurbo joogta dibadda joogta anigu hadda aan ka imidna ma ay qiyaasi karaan ma inay doono ku arkaan ma runtii haddii looga sheekeeyo mid galaysa ma marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay meeshan 18 sano ka maqnaa haddaan imid waqtiga aan ka tagay maanta laba isu iman karta ma aha wadada waa arkaan laamidan way bilaaban doontaa marka iyadoo laamiga bilaaban hadda sida ku anfacayso beebaysaa baabuurka baaburiya fiiq oo ka socdaa. ugu dambeyntii qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Fiiq ayaa sheegay inay aad u faraxsan yihiin horumarka ka socda gobolka Fiiq ayagoo u mahadceliyay maamulka cusub ee dib u warshada gobolkaasi Fiiq. daawadayaal warkeena caawa ee TVC intaas ku dhawaay saasiyo habeen